وسائشاسي الإكثار من تذكر الموت إن أدبديسو حسوس تجيريدا iyo noloshani inay dhamaanayso. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa amray in Cabdinaasir Adan Ismaan loo magacaabo mareeyaha mashruuca horumarinta xeebaha iyo kalluumaysiga dalka, maanta ayuuna shaqadaas la wareegay. Cabdinaasir ayay xigta dhow ama qaraabo qoys yihiin Madaxweyne Xasan Sheekh. Magacaabidiisa ayaa loo keenay in uu maamulo mashruuc ka imaanaya Bangiga Adduunka oo lagu bixinayo lacag dhan $50 milyan. Sarkaalka la magacaabay waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug, horeyna ay ugu sharaxeen jagada guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas, balse uu dargacal uga guulaystay. Isweydiinta taagan sharciyan ma sii ahaan karaa xildhibaan. Madaxweynaha ayaa cid kale diiday in mashruucan uu ku aamino xilli ay soo baxayaan macluumad caddaynaya in xubno horey musuqmaasuq ugu caan ahaa ay magacaabistan ku daaban yihiin, kuwaas oo ka mid qoyska madaxweynaha, baraha bulshadana hadda ka difaaca.